kulanti wacan oo wanaagsan daawada ku soo dhawo barnaamij gaar ah oo ku saabsan arrin si aad looga hadalhayo muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada taasi oo ku aadan dhagax la sheegay in uu qaali yahay oo laga helay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan. Arrinta dhagaxa ayaa waxay sababtay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay tahay goobta dhagaxa laga helay in xitaa ay baraha bulshada isku aflagaadeeyaan oo warbaahinta isku weeraraan. Marka hore waxaan ogaan doonaa macluumaad ku saabsan dhagaxaasi iyo waxa uu yahay. deegaanka ceel cali oo ka mid ah deegaanada gobolkaasi Hiiraan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa la hadalhayay dhagax aad qaali u ah oo halkaasi laga helay kaasoo ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku qabteen duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dhagaxaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid si weyn deegaanka looga yaqaan isla markaana sanado badan halkaasi yaalay. muddooyinkii ugu dambeeyay in la hadalhayana waxaa ka dambeysay kadib markii halkaasi laga soo qaaday dhagaxa oo la sheegay in lagu kala gatay dhaqaale gaaraya $260,000 Mareykanka. dhagaxani oo la sheegay inuu yahay mid qaali ah ayaa la sheegay in lagu ogaaday kadib markii qayb ka mid ah dhagaxaasi la soo qaaday isla markaana baaritaan lagu sameeyay, waana midda keentay in loo kala tartamo isla markaana dagaal uu ka dhaco gudaha deegaanka kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac. intaasi kadib dhagaxan ayaa suurtagal waxay noqotay in rag ganacsato ahaa ay gataan isla markaana ay doonayeen inay dib u sii iibsadaan sida macluumaadka aan ku helayno. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada deegaan ahaan laga soo doortay deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan ayaa sharaxaad dhameystiran ka bixinaya dhagaxaas iyo wuxuu yahay kadib markii wareysi uu siiyay warbaahinta. arrinta iyada su'aasha iga weydiisay Ceel Cali dhagax ayaa laga helay. dhagaxa laga helay waa dhagax caan ku ah magaalada muxuu ahay meel magaalada duusheeda ay yeelay muddo qarniye ana yeelay. runtii dhagaxaas dadka waxay dhihi jireen dhagaxa oo muxuu ahay waxa loo yiraahdo afeelaha waxa loo yiraahdo ay ka goosan jireen oo dhagxaanta muxuu ahay wax lagu soo faysto jooreeyada iyo maxaa la yiraahdaa masaarada iyo wax noocaas ay dadka isiga isticmaali jireen. dhagaxii niman shabaab ah ayaa meesha ku helay. dabcan shabaabka ruuxooda waa farmuqa waa la siiyay si aan xogta ku helay. waxaa lii sheegay in dhagaxaas sample ka mid la soo qaaday lagu soo sameeyay muxuu ahay baaritaan. kadib baaritaankii ayay waxay ka dhalatay in dhagaxii la kala beecsado dad ganacsato ah iyo muxuu ahay al-shabaab ayaa kala beecsaday. dadkii deegaanka ayaa arintaas ku soo baxay 8 bisha ayaa dagaalkii ugu xumaa oo meesha ka dhacay dadka deegaanka iyo shabaab u dhaxeeyay. shabaab waxay u farmaroojiyeen dadkii deegaanka xoog ayay ku qasbeen. 2 nin meeshaas ku dhimatay ayaa lagu dilay muxuu ahay meesha liira buuqda inta la geeyaa lagu dilay. iyagoo shabaabka ruuxooda dad inay ugu dhintay ayaa noola sheegay. si kastaba ha noqoto dhagaxii inta la soo qaaday la qoday wiishash laga ka baxay xamar lagu soo qoday baabuur la soo saaray. intaas dabagal baan ku haynay waa la soconay. waxay keeneen buuqdi ayay muddo badan ku haayeen oo ay ku gorgortamayeen. alcamuum markii ugu dambeysay waxaan xogta ku hayaa in lacag gaarayso ilaa iyo $264,000 ay niman ganacsato ah soo siisteen. nimanka ganacsatada runtii markii ugu horeysay nimanka watay baleemka dhagaxa shabaabka inay muxuu ahay ay u muquuniyaan rabi ayay ahaayeen. laakiin lacagta shabaabka la siiyay waxay ahaayeen $264,000 sida noola sheegay. dhagaxii waa la soo qaaday. annaga waxaan si dhow ula soconay hadba dhinaca meesha uu marayo. dadka mas'uuliyiinta ka soo jeeda deegaanka dhowr jidgooy oo xataa Hiirshabeelle maamulka Hiirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka arrintaas xoog uu noogala shaqeeyay. meelaha mariinka waa baabuurta muxuu ahay xamar ay soo aada mariinta waa ayaan ka baadagoobaynay. isku aakhirkii waxaa gacanta ku dhigay ciidankeena gobolka Banaadir sharaf iyo khayr ba Allah siiyo. ciidankaasaa qabtay oo booliiska ah
dhinaca siinka dheera lagu qabtay hadda waxaa noola sheegay in hay-adaha amniga hay-ad kamid a ay gacanta ku hayso milkiilayaalkii soo sheegtay hantidaasna ay qaarkood xiran yihiin waxaan mar walba aan ugu digaynaa dadka ganacsatada muxuu ahaay soomaaliyeed in dadka shacabka aan loo adeegsanin al-shabaab dadka khayraadkooda ilaahay hadduu siiyey in iyaga lala macaamiltimo waa wax daaw ah laakiin in las muquuniyo inayna habboonayn xildhibaan daahir dabcan dhagaxa dhibaatada loo maray ee dadku ku dhinteen ugu dambeynna xamar la soo geliyey oo hay-adaha amniga ay hayaan muxuu yahay maxaase ka takooray dhagaxyada kale ee deegaanka yaallo oo loo soo qaadan waayo carada iyo dhagaxa iyo waxyaabaha kale halkaa yaalla oo dhagaxa keliya lagu diriray oo la keenay xamar waad mahadsan tahay dhagaxan baaritaan ay ku sameeyeen waa dhagxaanta qaaliga dabcan sidai ay kusoo ogaadeen sida weliba aniga xogta aan dhabta sidaan u hayo oo lii sheegay baaritaan oo dhab ah oo shakhsiyan ah ayaan sameeyey waxaa lii sheegay in muxuu ahay company jooga Uganda jaynaysa ay baaritaankan uu soo cadeeyay sida dad dhow laga soo xigtay si kastaba ha noqoto dhagaxii maanta gacanta dawladdu ku jira waa wuxuu yahay dawladda federaalka laga rabaa inay sheegto khasaarihii dadka deegaanka loo geystay sidii lagu xalin lahaa dawladda federaalka laga rabaa shacabkaas waxay taageersan yihiin shacabkaas dawladda federaalka ay taageersan yihiin dhulka nacfiga laga soo qaata deegaanka xaq buu ku leeyahay muxuu ahay dadkii la dili xaq bay leeyihiin waxaasoo dhan dawladoodana waa dawladda maanta qabatay ayaga ayaan rabnaa dadkii deegaanka ahaa iyo iyaga inay ka wada arrinsadaan oo ay arrintaas muxuu ahay ay noqoto mid saddex geesooda ganacsatadii soo gadatay iyo dadkii deegaanka iyo shabaab hadda dadka loo adeegsaday iyo dawladda federaalka hadda maanta waxay ka dhexaysaa arrintan dawladda federaalka dadkii soo gatay iyo dadkii laga soo dhacay intaaba inay wada waxaan filayaa inaad ogaateen macluumaad dhammaystiran oo ku aadan dhagaxaas iyo waxa uu yahay haddaba arrintaasi kadib waxa ay keentay in xildhibaanada baarlamaanka ee deegaanka laga soo doorto ay warbaahinta hadalla kulol isu mariyaan islamarkaana weerara isugu qaadaan midba midka kale maadaama ay xildhibaanada halkaasi laga soo doortay ee ka tirsan baarlamaanka ee aad ay u badan yihiin guud ahaana barnaamijkii gaar ahaaneed waa naga intaa oo aan doonaya keliya inaad ku ogaateen macluumaadka ku aadan dhagaxaas iyo waxa uu yahay baaritaano kaleento oo ku aadan dhagaxaas iyo halka lagu hayo ayaan idinla wadaagi doonaa qaybaha kale ee barnaamijka markaan xog dhammaystiran ka helna insha allah qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo halkan waa Maracadda Show ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon